السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لها قالقة كنت حنبرتين يوتيوبك وايا شيك waxaan ka cudur daaranayaa in aanan maalmahan soo gelin wax muuqaal sababo la xiriira mashquul dartii balse insha Allah waxaan isku day doonaa imika in uu sidii hore ku soo noqdo kanaalkeenu muuqaalkeenan waxa aynu kaga hadli doonaa qisada caanka ee uu ku soo islaamay Yusuf Easter oo magaciisa hore ahaa Skype Easteris. Sheekh Yusuf Estes waa diinfidiye muslima waxa uu hadda degan yahay magaalada Alexandria gobolka Virginia waxaase uu asal ahaan u dhashay kana soo jeeda gobolka Texas. waa sheekh haybad iyo sharaf leh marka aad u fiirsato muuqaalkiisa iyo habka dhar xidhashada waxa aad moodaa in uu shabaho Allah u naxariistay Sheekh Albani. Sheekh Yusuf Easter hore waxa uu u ahaan jiray diinfidiye Kristaan waxa uu ahaa wadaad Masiixi oo ka tirsan kaniisada Protestantiska hase ahaatee waagii dambe ayuu Rabbi subxaanahu wa ta'ala waafajiyay diinta Islaamka isla markaana tusay jidka hanuunka. haddaba aynu ogolaano Sheekh Yusuf Easter in uu si faahfaahsan inooga waramo dhacdadii uu ku soo islaamay iyo sidii uu ugu soo dhacay jidka toosan. waxa aan waxbarashada ka bilaabay kaniisada kadib markii aan ogaaday in aanan waxba ka garanayn diinta aan haystay ee Kiristaanka. waxaan isweydiiyay su'aalo badan oo aan jawaab waafi u waayay sidaa darteed ayaan u bartay diinta Kiristaanka ilaa aan noqday wadaad diin fidiye oo kaniisada ku xisaabtanto. sidoo kale ayuu aabahayna ahaa wadaad Kiristaan oo diin fidiye waxaase intaa dheereed aniga iyo aabahay waxaanu lahayn ganacsi. waxaanu ka ganacsan jirnay qalabka muusikada iyo agabka la tumo waxaana aanu ka iibin jirnay kaniisadaha iyo goobaha cibaadada ee Kiristaanka. kaniisadaha waxa laga qaadaa heeso laxan iyo muusig leh oo ay cibaado u haystaan dadka Kiristaanka waxa aan aad u nabcaa Islaamka iyo muslimiinta. sawirka aan ka haystay waxa uu ahaa in ay muslimiintu yihiin dad aan Ilaahay aqoonsanayn oo caabudaya sanduuqa masaxarad madow oo dhex taala lamadegaanka Carabta. waxaana uu u jeedaa xajar al-aswadka in ay yihiin dad bahaloobay oo argagixiso isla markaana arwaaxda dhaafiya cid kasta oo ka soo horjeeda ama aan haysan caqiidadooda. hase ahaatee muddo 2 bilood oo uu marti noo ahaa gurigaygana joogay nin muslim oo u dhashay dalka Masar ayaa wax ka bedelay fikirka aanu ka aaminsanayn Islaamka iyo aragtidii aanu ka haysanay muslimiinta. kadib markii aanu aragnay ninkan dhaqankiisa habnololeedkiisa iyo nidaamkiisa oo dhan isla markaana aanu la fagurnay qodobo badan ugu dambeyntii waxaanu ogaanay arrimo badan oo ku saabsan Islaamka oo aanan hore waxba uga aqoon. Sheekh Yusuf Easter oo ka faaloonaya sidii ninkan Masriga ku yimid gurigooda ayaa sheegay in maalin maalmaha ka mid aabihii ku yiri waxa inoo imanaya nin Masri oo aynu la galayno heshiis ganacsi. Yusuf aad ayuu ugu farxay warkan waxaana uu humaag ahaan u sawirtay in ganacsigoodii ballaadhanayo isuna bedelayo ganacsi caalami waxaase Yusuf amakaa ku noqotay markii aabihii u sheegay in ninku yahay ganacsade muslim isagoo cadho ciil iyo rajabeel qarxaya ayuu aabihii u sheegay inaanu marnaba iyo sinaba toona ula kulmayn ninka ganacsadaha maadaama oo uu yahay muslim. aabihiina dhaar iyo xilafur ayuu la soo istaagay waxaanu ku adkeeyay inuu la kulmayo ninkan muslimka si tijaaradooda iyo ganacsigoodu u hana qaado. I was so afraid to even meet a Muslim that when my father told me we'd be doing business with a Muslim, I said, no way. No, these guys, Muslims, they are terrorists, they are hijackers, they are kidnappers, and they don't believe in God. In fact, they're worshiping a black box in the desert, and they kiss the ground 5 times a day. That was the way I understood Islam. mar labaad aynu majaraha iyo hoggaanka qisada ku wareejino Sheekh Yusuf Easter si uu inooga waramo waxa ay ku heshiiyeen isaga iyo aabihii sida uu u dhacay kulankii ganacsadahu. markuu aabahay ku adkaystay go'aankii inaan la kulmi doono ganacsadaha muslimka ayaan anigu tanaasulay sababtoo waxaan deganaa guriga aabahay waxaanan ka cabsaday in arintani ayna kala geyso aniga iyo aabahay.
waxaanan ogolaaday in aan anigu la kulmi doono ninkan muslimka ah. kolkii uu yimid ninkii ayaan u diyaar garoobay inaan la kulmo. waxaan soo gashaday koofiyad ay ku qoran tahay ciise waa ilaahay. waxaan soo xidhay mucatab weyn oo ah astaanta kiristaanka. waxa kale oo aan gacanta ku soo qaatay nuqul ka mid ah kitaabka Baybalka. anigoo muuqaalkan leh ayaan imid miiskii wadahadalka. markiiba waxaan bilaabay inaan kala hadlo diintiisa, inaan aflagaadeeyo islaamka iyo muslimiinta oo aan ku tilmaamo sawirkii qariibnaa ee aan ka haystay. hase yeeshee ninkii muslimka ahaa isagu muu cadhon, waxaana uu ku jiray xaalad caadi ah. xamaasadii iyo qiiradii i haysayba waxaa nuugay deganaantiisa. intaa kadib aabbahay ayaa ku marti qaaday inuu gurigayga noo raaco. guriga markaa waxaanu ku deganay aniga, aabbahay iyo xaaskayga. waana soo afareeyey ninka Masriga ah. waxa kale oo aanu soo marti qaadnay wadaad kale oo haysta madhabka Kaatoliga. sidaana waxa aanu ku noqonay 5 qof, 4 wadaad oo diinfidayaal Kristaan ah iyo nin muslim ah oo caadi ah. aniga iyo aabbahay waxa aanu haysanaa madhabka Protestantiska. ninka kale ee aanu u yeernayna waxa uu haystaa madhabka Kaatoliga. xaaskayguna ka haysato madhab kale oo Kiristaanka ah laakiin u janjeedha dhanka Yuhuudda. intaa waxa dheer aabbahay injiil waxa uu bartay isagoo oo da'yar, waxaana uu ku noqday wadaad ay kiniisadu qadariso. ninka kale ee Kaatoliga ahna waxa uu leeyahay khibrad 12 sano ah oo uu dacwada ku soo fidiyay labada Mareykanka Koonfureed iyo midka Waqooyi. xaaskaygu se madhabka ay haysataa waa madhab injiil ah.